السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan wax ka salaamaya dhamaan Soomaaliyeed meel kasta joogtaan salaamay wax leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaynu ka hadlaynaa dagaalka lagula jiro qoladan wajiga xidhan dhinaca koonfurta. waxa ay ugu dhaliyeen inaan qaato daruufta uu ka liftaa waxay tahay inaan ku jihaado qolada qawaarijiga la sheegayo aan wax la yiraahdo ma aqaan gaalada meesha dhoobood naf iyo maal waxay reebayaan la qof kasta oo sida shabaab loo dilo baranaya waa baranaya diyaar baan waa warma waxa ka caradaysiin ninkaas qawaarijta ah oo aan baal loo jiray aan tukan oo aan soobin oo tuuga ah miyaa ka cararaynaa warma waxa rabnaa inaan gudnimo ku noolaano war xornimo ku noolaano shabaab hadday maanta noo yimaadaan gabadheenu guur male difaacaas ayla gelaynaa waa inla dhibanaynaa ilaahay baan inla tala saaranaynaa waxaan naf iyo maal haynaa idinla garab taagannahay xoolaheena iyo maalkeena difaacanaynaa markay isgaarsiintii lagu noolaa gubeen markay ceelashii muslimka uu cabayay kuna weysaysanayay ay qarxiyeen markay waxba reeban waayeen waad aragteen waxa aan ku aragnay idinkuna waa nala aragteen meel walba al-shabaab ku jiraan aan ka saarno diyaar ah Gala
shabaab waxaad sheeganaysay waa diin waxaad caddaysay markaad 3 jir iyo 2 jir iyo hooyo ilmaanahoo umula markaad uurdooxday ayaad sabtay inaadan diinahay kuwa umiyiinta gaalada waxa ugu liita kuwa umiyiinta oo bilaadiinta ah kuwaasoo ma sameeyaan waxaas iska day kuwa nasaarada iyo yahuudda iska day umiyiintu ma sameeyaan waxaad sameeyeen waxaadna sheeganayseen inaad diin haysataan oo aad ku dagaalamaysaan diin oo aad dalka kula dagaalaysaan diin oo aad u sheegi jirtaan ummadda diin taasu danbay noqon dhulka ma hayno dadka ma hayno deegaanka ma hayno naftayna iyo maalkayna way u soo dhigteen maanta waxa ku qaadeen weerar ciiri dhula shicib iyo ciidanba waana sidii loo baahnaa taas wad ku xorin kartaan dalkii goboladiina taasaa ku xorin kartaan sidaa ku sii wada waan leeyahay shicib iyo ciidan hadday israacdeen waa sidii loo baahnaa wey sidii la rabay sidaa ku socda waan leeyahay ku wada inta kalena waxaan leeyahay diyaar garooba halka haddii dagaal lagala galay dhinaca kale inay usoo cararaan bay u dhowdahay idinkuna u diyaar garooba dadkan shicibaa la hubeeyey waxaa la hubeeyeyna anagu kolliba kuma raacsanin shicibka hala hubeeyaan leeyahay oo dhibkaas ka dulqaadeen idinkuna intiina aan hubaysanays hubeeye oo idinkuna u diyaar garooba subscribe-kana ii saaray ayaa laaweyna subscribe like share meel dheer gaarsiiya meel dheer